alla naxariistii jannaha ka waraabiye xamse maxamed cabdi gudoomiyihii gobolka Togdheer waxa uu dhashay horaantii sanadkii 1960 waxaana uu ku dhashay magaalada Burco waxbarashadii dugsiga hoose iyo sidoo kale ka dhaxe waxa uu ku qaatay dugsiyada Siyaad iyo sidoo kale Maxamuud Axmed Cali halka uu dugsiga sarena uu ku qaatay dugsiga 15 May intaasi kadib waxa uu xamse maxamed cabdi uu ka qayb galay barnaamijkii shaqada qaranka kaas oo ka qayb galay magaalada Burco xamse maxamed cabdi xilal kala duwan ayaa uu ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyay gaar ahaan xukuumadii madaxweyne Axmed Siilaanyo iyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi 10 bishii Afraad sanadkii 2016 ayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu magacaabay gudoomiyaha gobolka Gabiley muddo 2 sano iyo sidoo kale 4 bilood ayaa uu ka arriminayay gobolka Gabiley intaasi kadib madaxweyne Muuse Biixi Cabdi markii uu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday waxa uu soo magacaabay xamse maxamed cabdi inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Togdheer 22 bishii Afraad 2018 marxuunka ayaa dadka noloshiisa yaqaanay waxay ka marakaceen inuu ahaa shakhsi afgaaban dulqaad badan isla markaasina ku wanaagsanaa dhanka cibaadada Allah u naxariistay waxa sidoo kale marxuunka uu caan ku ahaa dulqaadka xamse maxamed cabdi dhowrkii cishee u dameeyay waxa uu jiifay xanuun ka hayay dhanka kaliyaha taasoo sababtay in shalay gelinkii dambe diyaarad khaas ay u qaado dalka Turkiga si halkaasi lagu soo dabiibo xaaladiisa caafimaad goorta moofiidkii xalay ayaanu halkaasi uu ku geeriyooday Allah u naxariistay xamse maxamed cabdi ayaa waxa uu ifka kaga tagay hal xaas iyo sidoo kale 9 caruura Allah u naxariistay xamse maxamed cabdi waqtigan waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan telefishinka caalamiga Sum News magaalada Burco